muqdisho oo ah caasimadda Soomaaliya ayaa isballaarinaysa tan iyo qaran burburkii dalka si gaar ah wixii ka dambeeyay sanadkii 1991 waxaase ay wehel u noqotay burbur iyo baaba rajada dadka muqdisho oo dib u iftiintay bilowgii sanadkii 2006 ayaa waxaa isla sanadkaasi dhamaadkiisii xigay dagaalo dhiig badan ku daateen iyo barakac baahsan wixii ka dambeeyay sanadkii 2010 waxa ay u ahayd dadka caasimadda fursad ay ku noolaan karaan nabad dibna ugu dhisi karaan magaaladooda oo ay halakeysay dagaalo aan dhamaad lahayn Kaxda waa degmo ka tirsan gobolka Banaadir oo ka kooban 17 degmo waxaa si rasmi ah loo fidiyay deegaameynteeda sanadkii 2006 ilaa 2007 iyadoo laba dikreeto oo xilliyo kala duwan ah u dhaxeeyay loogu aqoonsaday degmo kuwaasi oo ka soo kala baxay dawladii federaalka ku meel gaarka ahayd ee uu hogaaminayay Shariif Sheekh Axmed iyo dawladda federaalka Soomaaliya ee uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud Kaxda waxa ay ku taalaa cirifka koonfur galbeed ee caasimadda Muqdisho waxa ayna soohdin la kala leedahay degmooyinka Dharkeenley iyo Daynile dadka degan waa kuwa noloshoodu ay ku tiirsan tahay ganacsiga xoolaha caanaha iyo qoryaha la dhuxulaysto dadka degan degmada waa kuwa nabadda jecel kana dhigay deegaankooda mid nabdoon muddo dagaalo dhiig ku daateen kadib hawada neecawda leh ee aan dareemayo waxay ka imaanaysaa xeebta badweynta Hindiya halkani waa degmada Kaxda ee gobolka Banaadir waxayna ka mid tahay 17 degmo ee uu ka kooban yahay gobolka Banaadir waana degmadii ugu dambeysay Kaxda waxa astaan u ah geed qurac ah oo la harsado halkaasi oo ah madasha guurka si gaar ah xilliga gabadha la doonayo lana guurinayo Habiiballah nuur Allah Muhammad nabi magaasamo Habiiballah nuur Allah Muhammad nabi magaasamo waa dhaqan soo jireen ah oo dadka Soomaaliyeed ay ku faanaan Kaxda oo wali u baahan deegaameyn rasmi ah dhulka hawdka ahna uu ku badan yahay ayay qayladhaantu tahay in dadka dhulkaasi lahi in ay dhisaan mar haddii la helay adeegyada aasaasiga ah ee nolosha sida biyaha caafimaadka korontada iyo wadooyinka waa baaq muhiim ah oo soo jeedinayno dadka banaanka ku maqan waxa leeyahay degmo iyo dalba waxa dhistay dadkiisa degmada dadka u dhashay ee ama diaspora ama banaanka ku maqan ama gudaha jooga ee ganacsatada alla wax siiyay waxaanu ugu baaqaynaa inay degmadooda garab istaagaan oo ay dhistaan oo ay horumarka ku taageeraan oo jidadka ka saacidaan oo isbitaalada ka saacidaan
oo waxbarashada ka saacidaan oo baahida shacabeeda haysataa ay naga taageeraan ayaanu leenahay bulsho walba dadka degmo walba dadka u dhashay ama deegaan ahaan ha ugu dhasheen ama dal ahaanba ha ugu dhasheen ayaa saacida waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayaa maamulka gobolka Banaadir oo fikir saliima dalkan runtii gobolka u soo jeediyay oo hal ku dhagu yahay $1 ku dhisa dalkaaga waa xaqiiqdii hal ku dhag muhiim ah waay $1 hadii maanta meel dibad iyo gudaba laga diyaariyo oo lagu saacido wadooyin badan baan dhisan karaa jidad badan baan samaysan karaa iskoolaad badan baan dhisan karaa horumar badan baan gaari karaa runtii inta fikirkaasi u dhashay wadooyin badan oo caasimada ku yaala ayaa wax laga qabtay oo la dhisay iyadoo taa laga tixraacayo waxaan leeyahay baaqaasi waa baaq saliima $1 dalkaaga ku dhiso ninna waxba uma dhinto dalkana way dhistaa kaxda waa dhul carasan oo leh hawo neecaw cimilo heer dhaxa ah kana fog guuxa iyo sawaxanka waa deegaan hurdada iyo nasiinada ku wanaagsan ina kaxda markii la yiraahdo horta kaxda waxa isla markii maskaxdaada ku soo dhacayo dhul urdun ah oo udgoon oo ah dhulka lagu noolaado dhulka ugu fiican oo aysan ahayn dhulalka deestiga ah oo busta badan oo siiga badan aan ahayn dhul caraf badan caradiisana ay tahay carro urdun ah mar labaad maxaa kugu soo dhacay kaxda markaad maqasho waxa maskaxdaada isla markiiba ku soo dhacay dhaayda caanihii geela caanihii loodi markiiba ma helaysido kaxda hadaa tagto caanad soo helaysaa ku xisaabtamaysaa degmada kaxda hadaa tagto ma ahan kaxda waxay leedahay horta degmada kaxda waxay ka kooban tahay 4 waaxood ay ka kooban tahay waaxda koobaad waxa la yiraahdaa waaxda leeqleeqato waaxda labaad waxa la yiraahdaa abaadir waaxda saddexaad waxa la yiraahdaa Cumar Fiyaasko iyo waaxda afraad oo hadda aan ku sugannahay oo ah waaxda degmada ugu weyn ee Shimbiroole marka baraha waxay leedahay kaxda oo caan ah oo la yaqaana xaruntii asluubta Soomaaliya ayaa ku taalo kaxda oo haatan si weyn loo sii ballaariyay badanaana ah xarumaha ugu caansan ee degmada kaxda laga helo oo lagu sheegi karo la leeyahay degmada kaxda maxay caan ku tahay xaruntaas asluubta ayaa kamid ah waxa kale oo jiro xerooyin gaar ah waxa kale oo jiro oo kaxda lagu yaqaana xaruntii raadaarka ama maxaa la yiraahdaa xaruntii aan ilaahdee boostada isgaarsiinta dhulka ay lahaan jirtay ayaa ku yaala degmada kaxda oo haatan ilaa hadda lagu yaqaana degmada kaxda baro badan ay leedahay kuwa cusub oo hadda dawladda loo aqoonsaday oo hadda la siiyo iskuulo waxbarasho ahna way jiraan rugaha caafimaadka ee dadka lagu gargaaro ayaa ah kuwa bixiya adeegyo looga kala yimaado degmooyin kala duwan oo ka kala tirsan gobolka Shabeellaha Hoose iyo Banaadir runtii 80% baahi badan baan u qabnaa arrimaha bulshada marka la yiraahdo isbitaalada oo kale oo xagga caafimaadka marka laga hadlayo isbitaaladu wax isbitaal oo weyn oo muhiim ah oo isbitaal dawli ah malihin laakiin isbitaallo gaar loo leeyahay marka la yiraahdo waxa ku yaala isbitaalka weyn ee loo yaqaan isbitaalka Albirri isbitaalkaasi wuxuu ku yaala Siinka Dheer waaxda cali maaragtay Shimbiroole ayuu ku yaala waa isbitaal weyn oo bulshada u adeega oo aad iyo aad muhiim u ah inta marka isbitaal ahaan laga yimaado inta kale ee ku taalaay waa MCAJ yar oo aan badnayn oo ku fillayn adeega bulshada isbitaalkaasina degmada oo maaragtay dadkeeduna uu badan yahay baaxdeeduna ay ballaaran tahay isbitaal hadda runtii aan isleeyahay inkasta oo gobolka Banaadir uu adeego degmooyinkiisa kala gedisan oo dadka isbitaalkaasi lagu dabiibo ay ama Shabeellada Hoose ama gobolka Banaadir ka kala yimaadaan ma cadaalka waxaan isleeyahay waa kuma filla xagga isbitaalaadka iyo caafimaadka MCAJ-da hooyada dhallaanka aad iyo aad baan ugu baahi qabnaa haweenka oo ah lafdhabarka nolosha waxa ay degmada ka fuliyaan howlo kala duwan oo wax ku ool ah asaasigi oo degmada oo dhan ururka haweenka ahaya haday tahay nadaafad haday tahay amni haday tahay wax qabad dhinac walba oo tahay urur haween baa degmada kaxda ka shidan gobolka Banaadir uu yaqaana degmada kaxda gudoomiyaheedana uu yaqaana gabdhaha hadda ila fadhiya waagu markuu bariyo saasna degmada u imaadaan waxay saaka dhan nadaafaday ku jireen hadda meeshaan iyagoo dhan isu wada imaadeen oo soo farxasheen oo shaahiyo cabahayeen biyo cabitaan degmada kaxda marka waa nabadgeliyo waa barwaaqo urur haween baa ka shaqeeya dhalinyaro ka shaqeysa ma garanaysa waaxii baa ka shaqeeya
degmo isku xidhan oo ma garanaysa abaabulkoodu aad u fiican yahay wey. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. degmada Kaxda waxa ay dhacdaa goob istiraatiiji ah waxa ayna ka mid tahay degmooyinka gobolka Banaadir ku xira gobolka Shabeellaha Hoose. degmadu waa degmo ballaaran waxay ka kooban tahay 4 qaybood. waxay ka soo bilaabataa ex control xaggan ilaa siinka dheer bay tagtaa. xaggan waxay ka soo bilaabataa siinka dheer ex control ilaa iyo maaragtay xeeb bay tagtaa. waxay xuduud la leedahay degmada Dharkeyley bay dhinac xuduud kala leedahay, dhinacna waxay kala leedahay degmada Daynile. shaah cabidda oo ah wax Soomaalidu ay taqaan kuna waqti qaataan xilliga sheekeynta iyo tala wadaaga. geedahan aad arkaysa 6 geed aad arkaysa kuna saa la dhahaa ninka yimaada shaah iyo caanaha geela ee dhayda ah yaan ku harqinaynaa. Kaxda waxa ay caan ku tahay shaaha waxa ay leedahay fadhiyo lagu nasto oo duqowda iyo dhalintu ay isku weedaarsadaan wax walba oo wanaag ku qotoma. odayaasha iyo dadka khiyaarta meeshan isku wareysaan isugu yimaadaan oo nabdaadiga la isku warsada meel aad u wanaagsan. siyaasadii waxa laga shaqeeyo waa bariga iyo cibaadadii waxa la isku weydiiyaa waa lu shacaba shaah laga kariyo waxa la baraad waa shaah sonkorta iyo rinjiga iyo cadays isku dheelitirin waxaana geelo lis oo cusub oo ka horteeda yaal. marka waxaan leenahay ilaahay guusha iyo khayrka iyo barwaaqada ha noogu sii wado. degmada Kaxda waxa ay sameysay horumar dhinacyo badan leh muddadii gaabneed ee ay jirtay. goobo lagu nasto oo qurux badan, hoteelo iyo dhismayaal ganacsi.
maskaxdeena isu geeyay muruqeeniyo xoogeeniyo maskaxdeena isu geeyay magaaladeena qurxiyay waxbarashada waa furaha nolosha waxa ay u saldhigtaa hagtaa maaraysaa geedi socodka nolosha aadanaha baraha waxbarashada ee degmada Kaxda waa kuwa sameynaya howlo muhiim ah oo taabagelinaya kobaca dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada dugsiga Cayni Shamsi waxa la aasaasay 2007 markii qaxi jiray marka waxa lagu aasaasay geed hoostiisa waxbarashadiisina waxay soo kala martay heerar kala duwan maanta sanadkeedka 2016 waxa ka qalan jibinayo dufcadii 8aad ardada waxay ka kooban tahay taqriiban 900 wamaazada labada gelin oo shaqeeya gelinka hore waxa shaqeeya dugsiga dhexe iyo dugsiga sare iyo dugsiga dhexe taqriiban 12 fasal ayaa shaqeysay subax galabna sidoo kale 12 kala marka shaqeeyaan oo dugsi hoose ilaa dugsi dhexe ka kooban marka waa degmada Kaxda iskuulka ugu horeeyay ugu facweyn marka magaalada loo fiiriyay waa degmada ama gobolka Banaadir iskuulaadku ugu weyn oo marka kamid yahay waa arkaysaan marka horumarka waa wixii ugu horeeyay ama unugii ugu horeeyay oo lagu aasaasay degmada Kaxda intii ardadii ka qalan jibisay ilaa PhD marka soo diyaarinayaan mustaqbalkana waxa rajaynaynaa in marka meesha email ka fog inuu tago iskuulada iyo goobaha waxbarashada Qur'aanka Kariimka ah ayaa ah kuwa soo saara jiil waxbartay oo dadka iyo dalka wax tara caruurta wax ka barata degmada waa kuwa dhiiran oo u firfircoon ka guulgaaridda horumarinta noloshooda waxa ayna isku dayaan xoojinta suugaanta Soomaalida mugdi lama xulo adoo galin xabaal aadan noqonin xay waqoxooti xiro loo xayn tabiyo nacabku nahayn mugdi lama xulo adoo galin xabaal aadan noqonin xay waqoxooti xiro loo xayn tabiyo nacabku nahayn xusul duufka orod oo ku xiiqnaye xamar yaa u maqan dalkeenan xaniban xusul duufka orod oo ku xiiqnaye xamar yaa u maqan dalkeenan xaniban xawataaka iyo dhagax tuur allow xamar oo nabadka yeel dadku wada xabiib farxad iyo galgacal xamar lagu qiiqeen dadku wada xabiib farxad iyo galgacal xamar lagu yiqiin xifaal tamtalo ku xabeebane xagee bay jiraan culumadii wacne xagee bay jiraan xifaal tamtalo ku xabeebane xagee bay jiraan culumadii wacne xagee bay jiraan daayarta Kaxda waa kuwa hidaha iyo dhaqanka muujiya ku faana Soomaalinimada ku gabiya ku geeraara afka hooyo sanad wanaagsan saaxiibayaalo sooyaalka taariikhda socodkeeda hijriyada soo inaan u beeracno saas kuma haboone soo inaan u beeracno saas kuma haboone safarkii rasuulkii iyo socdaalkii Madiina aad sallallahu calaa safkiisoodin lagu yiri loo seexday kaadintee sallallahu calaa saas nabi ku raaceen gaala surkii loo jaray sallallahu calaa sanad wanaagsan saaxiibayaalo sooyaalka taariikhda socodkeeda hijriyada soo inaan u beeracno saas kuma haboone soo inaan u beeracno saas kuma haboone